إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا ليال ما أنت كلمة وما قلبت جمعة ما أنت ومال وين ومسلمين تمالمها وقفض لقبضا مالمها أسبوع أي كم التهي مركا كوات waxaan isku dardaarmaynaa cabsida Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan kaga cabsano marka aan kaliya nahay iyo marka aan dadka la joogno si isku mid ah inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga yaabno oo uga cabsano ayaa la doonayaa walaalayaal. sababtuna waxa weeyaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa midka isaga ku abuuray, isaga ayaa adiga ku abuuray ku arzaaqa waxa weeye noloshaada, geeridaada, caafimaadkaaga, xanuunkaaga, intaba khayr iyo sharba Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa gacan ku haya. marka sidaa darteed ruuxa muuminka waxa laga doonayaa inuu ruuxu uu ka cabsado Ilaahay subhanahu wa ta'ala, inuu ka cabsado ayaa la doonayaa. Ilaahay wuxuu leeyahay isagoo ka sheekeynaya يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أو كما قال الله سبحانه وتعالى. إلهي وحلي هي وحد كعب ستان إلهي سبحانه وتعالى كعب صدى ولبس سدى أبو إلهي سبحانه وتعالى وأم التيستي وحق أولي هي إلهي وقعب صدى سدى أدقو تعيشها هي إلهي هو قعبسا، إلهي سيدا وكو أمري إلهي سبحانه وتعالى هو قعبس. قضب كامر كان كسو تقنو كلمة قلبتها وحيكو سابسانتها هي روح مؤمن كأه مسلم كأه وحو مر والباء كجرا صدح حالضات متكمدة أيو كجرا. روح كستو مؤمنة أو مسلمة أو دنيا قوت كذا سارا ما أنت النور wuxuu ku sugan yahay saddex xaalo midood ayuu ku sugan yahay ruuxa muuminka. saddexda xaaladood waxa ruuxa muuminka waajib ku ah xaalad kasta nooc gooniya inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku caabudo ayaa waajib ku noqonaysa. xaaladda koowaad ee ruuxa muuminka ah uu ku sugan yahay waxa weeyaan xaalad barwaaqo iyo nicmad iyo galad Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku jiro. ruuxa muuminka mar waxa ku soo maraysa aad ku jirayso barwaaqo iyo nicmad iyo saruuro iyo qaaca Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad u dhawaanayso xilli aad ku jirto ayaa ku soo maraysa. xilligaasna waxa ruuxa muuminka waajib ku noqonaya inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala nicmada iyo galada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay inuu Ilaahay uga mahad celiyo, inuu Ilaahay kaligii uu u qiro, inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligii uga shukri noqo nicmadaas Ilaahay uu ku galadaystay ruuxa muuminka. waa xaaladda koowaad weey. xaaladda labaad waxa weeyaan ruuxa muuminka wuxuu ku sugan yahay xaaladda labaad oo ah mar uu macaasi iyo dunuub iyo waxaan aakhiradiisa iyo adduunkiisa aana u fiicnayn oo waxa weeye Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu kaga fogaanayo xaalad uu ku sugan yahay. xaaladaasina ruuxa muuminka waxa ku waajib ah inuu Ilaahay xaqiisa u laabto, inuu toobadkeen la yimaado, inuu waxa weeyaan xagga Ilaahay u cararo ayaa waajib ku ah isagana. xaaladda saddexaad ee ruuxa muuminka uu ku sugan yahay markii labada xaaladood laga soo tago waxa weeyaan xaalatul musiiba, in ay ku habsato musiibo iyo balaayo iyo ibtilo iyo imtixaan isaga la imtixaanayo xaalad ay ku timaado
ayaa dhici karta inay ku timaado ruuxa muuminka xaaladaasina ruuxa muuminka waxa waajib ku ah in uu ku sabro uu ku dulqaato inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa weeyaan uu ku sabro waxa weeyaan dhibtaa soo gaartay ha ka soo gaarta dhibtaa xoolihiisii ha waayo ama naftiisii ha maaragtay cudurraha ku dhacaan ama maxaan ku dhaha awlaadii waxa weeye ha lagu ibtileeyo ama ehelkii iyo waxa weeye maaragtay qaraabadii ha lagu ibtileeyo yacni xaaladda uu ruuxa muuminkaa ku sugan yahay ee musiibada ah isaga markaas waxaa waajib ku noqonaysa inuu ku sabro xaaladdaas saddexdaa xaaladood culimmadu waxay dhahaan ruuxa muslimka ah ee mu'minka ah haddii uu saddexdaa xaalo uu ruuxa mu'minka ah marayo intuu nool yahay haddii xaalad walba wixii waajib ku ahaa uu la yimaado ruuxa mu'minka ah wuxuu noqonayaa ruux mujaahid ah wuxuu helayaa ajra almujaahid baa ilaahay subxaanahu wa tacaala siinaya wuxuu la mid noqonayaa qof fii sabiili illaahi ku jihaatamay oo soo guulaystay ama lagu soo dilay ajarka uu helayo oo kaleeta ayuu helayaa culimmaduna waxay ku itlaaqaan ruuxa mu'minka ah saddexdaa xaaladood markuu marayo xaalad kasta wixii waajib ku ahaa markuu la yimaado ruuxaasi wuxuu noqonayaa ruux waxa weeyaan jihaadu nafsi laga helay nafsadiisa ayuu la lagdamay oo la jihaaday oo uu ka adkaaday qof nafsadiisa ka adkaaday wuxuu ruuxu noqonayaa saddexdaa xaaladood ee ruuxa mu'minka uu marayo xaalad walba markuu la yimaado wixii waajib ku ah tusaale ahaan haddaan sii kala dhigdhigno waxaan nidhi xaaladda koowaad ruuxa mu'minka si fiican inaad iila fahantaan baan u baahanahay waxaan ugu celcelinaya waa sidaas weeyaan xaaladda koowaad waxaan nidhi ruuxa mu'minka ah saddex xaaladood mid ka mida kama zuulo imaa xaaladun baad ku suganta daqiiqad waxaa laga yaabaa inaad xaalad ku jirto daqiiqadda ku xigtana xaalad kale aad gasho ayaa dhici karta saddexdaa xaaladood ee ruuxa mu'minka uu u dhaxaynayo xaaladda koowaad waxaan nidhi xaalatu nicmatin wa sicatin wa taaca inuu ku jiro ruuxu xaalad barwaaqo iyo nicmad iyo gallad ilaahay inuu ku jiro xaaladda ruuxa waxaan nidhi waxaa waajib ku ah inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu keligii u nisbeeyo nicmaddaa iyo barwaaqadaas iyo galladdaa ilaahay ee u timaaday ruuxa inuu ilaahay keligii u nisbeeyo ilaahay keligii uga mahad celiyo ayaa waajib ku noqonaysa ruuxa mu'minka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi asagoo ka sheekaynaya xaaladaas ruuxa mu'minka markuu ku sugan yahay waxa waajibka ku ah markuu la yimaado ilaahay wuxuu leeyahay la in shakartum la aziidannakum wala in kafartum inna cadaabii la shadiid la in shakartum haddaad iiga mahad celisaan oo aad iiga mahadnaqdaan nicmadda aan idin siiyey iyo galladda aan idin siiyey لأزيدنكم وأن إذن كردينيا وأن إذن بركينيا وأن إذن برارينيا وأن إذن لبتشباريا ما إلهي سبحانه وتعالى لي لكن نعمداس هدي نعمدا وروح ككفريو وحوي وير هذا النعمدة أن كشرو أنا قاعد إذا كسر دعسدي أنا قاعد كرتيدا إذا إيه رجنيمدا إذا إيه دلال كيجا إيو أود إذا إيه حق كيجا ayaan ku keensaday nicmadan iyo barwaaqadan aan ku jiro oo waxa weeye galladda ilaahay siiyey uusan ilaahay u nisbayn uu isaga isku nisbeeyo ama adoon kaleeto isagoo kaleeta uu u nisbeeyo ama waxaanan markaaba noolayn oo jamaadaad ah uu u nisbeeyo iyadana waxay soo hoosgalaysaa kufri ayay soo hoosgalaysaa wala in kafartum inna cadaabi la shadiid yani nicmaduhu ilaahayna siiyey نبي عليه الصلاة والسلام وحيري من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها نبي وحيري عليه الصلاة والسلام قفكي واغو أبريو إساغو آمن أو بدقبه أو عافمات قبه أيو واغو أبريو عدو كعب سنة يا مجرته كوا نعمة كواد واجو مركو كوبريو سنة بتقلية أو أمنية واجو كوبري نعمة الله بعد وحويان
عنده قوت يومه مالك واحد عوني لهيد صدح ذا وقت واحد عوني لهيد ودبك صارا لهيد أياد هيستا معافا في جسده شرك ياغونا وشر عافمات قبه واغو مركو كوبريي عافمات با لا سو توستay iyo nabadgelyo iyo waxaad cuni lahayd oo aad haysato quudkaaga saddexdaa shay nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ruuxi isku hela maalinkiisa فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها wuxuu la mid yahay qof adduunyada oo idil loo soo koobo gacantiisa loo saaray يعني qof adduunyo aysan ka maqnayn adduun oo dhan qof gacmihiisa ay ku jiraan adduunkan oo dhan qof hantiyay oo kaleeto ayuu ruuxu la mid noqonaya marka waxaan doonaynaa nicmada iyo gallada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nagu manaystay xaafadaad ka soo baxday si nabadgeliyaad ugu laabatay waxa weeyaan imisa ayaa xaafadooda intay ka kalahaan aanan ku laaban iyagoo waxa way maaragta ama xanuunsan ama waxa weeye wayba dhinteen oo gaari baa jiray leey ama si kala u baxay yaani waa nicmad Ilaahay uu ku siiyay way nicmada neefta aad qaadanayso oo aad soo celinayso waxa way cunada aad cunayso iyada iskeed ay isku burburinayso oo waxa way maxaan ku dhahay jirkaaga tin ilaa cirib meesha ugu dambaysa nafaqadii aad cuntay ay gaarayso waa nicmad weeyaan nicmadaas adigu warba kama haysidba shaqana kuma li cunada waan cunaa waxa weeyaan hadhowdii jirka ayaa shaqadiisa qabsada adigu warba kama haysidba jirkaagii waxa weeye maaragtay meel walba waxay u baahnayd iyo nafaqaday u baahnayd baa la geynaya adiguna war kama haysid nicamaadka faraha badan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiiyay haday ubad ahaan lahayd haday hoy ahaan lahayd hadii wax la quuto ay ahaan lahayd hadii wax barasho ay ahaan lahayd maanta dad badan baa waxa jira caalamka ku nool aanan haysan cid wax barta aysan haysan marka wax kasto kugu heerarsan hadaad u qirato inay tahay nicmad Ilaahay uu ku siiyay oo maanta dad badan oo dunidan ku nool aysan haysan waxa weeyaan maanta qof aan haysan maryo uu xidho qof aan haysan hoy uu galo qof aan haysan waxa weeyaan wuxuu quuto qof aan haysan yaani baahiyaha bini aadanku uu leeyahay oo idil dad maanta ka aradan oo aan haysan waxba baa jira marka in adiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku siiyay nicmadaas waxa la doonayaa inaad garato oo qirato ayaa la doonayaa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga mahad celiso oo waxa way mar walba naftaada aad ku baraarujiso aad tiraahdo adoon Ilaahay baan ahay galladan iyo nicmadan Ilaahay baa isiiyay karti iyo awood aan dadka kala dheerahay oo waxa way anigu aan ku mutaystay ma jirto nicmad la isiiyana waxa ugu qaalisan zamankan nabi maxamed alayhi salatu wassalaam uu sheegay qof kasta waxa weeyaan nabiga xadiis wuxuu sheegay macnihiisu uu yahay wuxuu yiri nabiga alayhi salatu wassalaam waxa dhici karta qof muslima in adduunyo la siiyo adduunka wax allaalay wuxuu u baahay in la siiyo dhici karta qof gaalana waxa dhici karta in uu siiyo xadiisku macnihiisu wuxuu ahaa inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti al-iimaana illa man yuhibbu إلهي سبحانه وتعالى الدنيا وحولها وأولادها وهنتها وقريها وقواردها وحولها للنقض الدونك إلهي وحصية من يحب ومن لا يحب عدو إلهي تشعلي هي إلهي الدونك واسية ومن لا يحب عدو سنشعلين أو قالاء أو إلهي سبحانه وتعالى كفر دينا الدون واسية إلهي سبحانه وتعالى لكن النبي يقول ولكن لا يعطي الإيمان إلا من يحب إلهي مصيو إيمانك يا إسلام تنمرة يا دين تصوبا حنفية النبي محمد عليه الصلاة والسلام نلو قصر إيبي إلهي الدين مصيو قف إلا من يحب عدو تشعليها المويان مرك النعمة كوين مجرته إن وحوي أن كل لنا دينتي إسلامك والدينتي النجوم بربارية دينتي إسلامك كوقان قارني دتكو أي كوي نادين هدو دينا وحوي لجوا يلوب يلقون لمني يعني نعمتك فضل بدن وإلهي سبحانه وتعالى نعمتها كون أكثر كخير بدن وإلهي نسيه مجرته ونعمته وقال لسن
الزمن كان يا أدون كان أن كنا النهي إلهي سبحانه وتعالى النسي حديث كمعنيه سواسدا سويان إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولكن لا يعطي الإيمان إلا من يحب إلهي إيمان كإسلام تنمذا مصيه عدو تعالي هاي مويان عدك الإلهي مصيه marka waxa la doonayaa nicmadaas iyo galada Ilaahay nasiyay inaan isdareensiino maanta dad badan imisa gaala zamankan nool oo waxa weey diintii islaamka ee wanaagsanayd aanan qaadan oo waxa weey laga yaabo qaarkood inay hadda waxa weey diintu aysan waliba gaarin ba ay dhici karto annagana waalidiin abka ab ay diintan ugu soo gaartay waana lagu dhaliyay waan ku dhalanay oo waan ku barbaarnay oo waan ku weynaa nicmad ka qaalisan oo aan haysanaa nicmadaasi ma jirto marka waxa la doonayaa nicmada markaad ogaato inay nicmad tahay ruuxa mu'minka waxa laga doonayaa inuu Ilaahay uga mahad celiyo su'aal marka waxa iimaanaysa nicmada markaad Ilaahay uga mahad celiso maxaa faa'iido ka helaysaa maxaa adigu faa'iido ka helaysaa yani maxaa faa'iido kuugu jirta laba faa'iido bay culimadu u sheegeen faa'iidada koowaad waxa weeyaan nicmada aad haysato ba Ilaahay ku sugaya wax ka qaalisanna ma jirto faa'iidada koowaad waxa weeyaan galada iyo nicmada Ilaahay uu ku siiyay ba Ilaahay ku raajinaya Ilaahay ku deynaya ku baajinaya nicmo faa'iidada labaad waxa weeyaan markaad Ilaahay u mahadnaqdo waxay noqonaysaa Ilaahay uu ku ziyaadinaya wala in shakartum la azidannakum wan idin ziyaadinayna nicmada hadii aad Ilaahay uga mahad celisaan xaaladaas marka waan ku sugannahay xil walbaan ku jirnaa waxaana laga doonayaa waxa waajibka nagu ah inaan la nimaano ayaana laga doonayaa xaaladda labaad waxa weeyaan xaalatul macsiya inuu ruuxu ku sugnaado xaalad macsi iyo dambi iyo gaf uu ku sugan yahay xaaladaas ruuxa muuminka waxa laga doonayaa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa u cararo inuu dambigi uu ku dhacay ka toobad keeno in waxa way Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa uu noqdo ayaa laga doonayaa ruuxa muuminka hadii xagga Ilaahay aad u laabato dambigaaga aad ka toobad keento Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ku dambi dhaafaya culimadu waxay dhaheen ruuxa muuminka ah hadii uu dambi ku dhaco dambiga uu ka toobad keeno wuxuu shabahay aabihi aadam ayuu shabahay ilan bini aadamka oo idil waxa aabe waa nabiyullaahi aadam alayhi salaam wa aabaheen way nabiyullaahi aadam markuu dambaabay oo amarkii Ilaahay uu caasiyay geedka ha cunin la yiri uu geedkii cunay oo macsidii uu ku dhacay wuxuu la yimaaday dambi dhaaf Ilaahay buu dambi dhaaf weydiistay Ilaahay xaqiisa u laabtay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa u dambi dhaaf marka waxay dhahan ruuxa muuminka haduu dambi ku dhaco dambigi uu ka toobad keeno wuxuu shabahayaa aabihi aadam laakiin ruuxa muuminka hadii uu dambi ku dhaco uu san dambiga ka toobad keenin wuxuu la mid noqonayaa ibliis la'anahu Allah ibliis waxa naxariista Ilaahay looga dheereeyay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada uu looga saaray oo waxa way maqruudun min rahmatillah ila yawm ad-din looga dhigay ila qiyaamada laga gaarayo waxa weeyaan wax kale ma ahayna markuu Ilaahay caasiyay macsidii iyo dambigii uu ku dhacay buusan ka toobad keenin marka waxay dhahan ruuxa muuminka hadii dambi uu ku dhaco dambiga uusan ka toobad keenin wuxuu shabahayaa ibliis ayuu shabahayaa culimadu dhahan marka waxaan nalaga doonayaa haddaan dad mu'miniin oo muslimiin aan nahay hadii gaf iyo macsiyo dambi ay naga dhacdo ama qowl ha ahaato ama ficil ha ahaato ama waxay dooni ha ahaato waxaana laga rabaa inaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala xaqiisa aanu cararno aanu laabana ayaana laga doonayaa xaaladda saddexaad waxa weeyaan in ruuxa mu'minka uu ku sugan yahay xaalad ibtilo la ibtileynay isaga oo waxa way musiibo iyo balaayo iyo dhibaato iyo xanuuno iyo xoolihii uu waayo iyo ubadkii uu waayo ehelkii oo ku xumaada qaraabadii oo ku xumaata xaalad taas oo kale inuu ruuxa mu'minka galo xaaladda ruuxa mu'minka waxa waajib ku in uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibaatada iyo ibtilada la marinayo isaga ayaa lagu tijaabinaya marka waxa la doonayaa ruuxa mu'minka inuu xaaladaasina ku sabro
وحويان إلهي سبحانه وتعالى دتك كالصبر ابتلاء دباتة كل عيسى دتكاسي وحويان أجر كوذا وحويان إلهي أبا قرنيا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب دتك كالصبر وحويان ماركتي أبا المرين توضو وحويان وأجر عن حساب لهين أجر عن حساب لهين أو أي أبوه ينتهي جنة أي أبوه ينتهي جنة الفردوس الأعلى أي أبوه ينتهي